صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيسيال داوديال كلنتي وناكسن وحا صعودة تحانهين كصاب سنة نفقة ديرتو أباهنتهي وعشر كي تمناد ما أنت وحان كهل دونا عريها مقعي سليراد منغنيس إيا وحتركا أوليها ديرتا مركو هوري منغنيس نانيسيسا كيميكات وما waa curiyaha 25aad ee kalgalka curiyaasha manganiis waa bir ka mid ah curiyaasha kala guurka ah ee kalgalka curiyaasha tiraatamkeedu waa 25 culis atamkeeduna 54.93 kaaftoonkeedu waa 2 ama 4 ama 7 manganiis waa curiye ay yar tahay dhaqdhaqaaqiisa geedka dhexdiisa waxaan la jeednaa saad ogsoontihiin geedku nafaqada iyo mineralska uu u baahan yahay xididada ayuu ku soo nuugaa geedka waxaa dhacda mararka qaar ku dhererkiisa inuu gaarayo 20-30-40 mitir inuu gaaraa dhacaysa marka laanta ugu sareysa waxaa geenaya nafaqadii ayaa meesha tagaysa curiyaashu marka way kala firfircoon yihiin guuritaanka ay ka tagayaan meel geedka kamida oo ay tagayaan meel kale way ku kala firfircoon yihiin manganiis marka waa ay yar tahay dhaqdhaqaaqiisa geedka dhexdiisa dhirtu waxay nuugtaa isaga oo ay ah ayoonka manganiis oo ah positive 2 ama togan oo 2 ah manganiis astaamaha yaraantiisu waxay ka muuqataa dhulka carrada base-ka ah leh macnaha base waxa loola jeedaa aan acid ahayn waxa dhacda in loo oksideeyo manganiiskii oo ahaa positive 2 ama kaaftoonkiisu 2 ahaa ayaa waxa loo bedelayaa manganiis oo kaaftoonkiisu yahay 3 taasi marka waxay keenaysaa inaysan dhirtu nuugi karin markuu positive 2 yahay dhirtu si sahlan bay u nuugaysaa laakiin marka positive 3 loo bedelo dhirtu ma ay nuugi karayso sidaa daraadeed carrada base-ka ama alkalinka ah nafaqadii ama curiyihii manganiis asoo ku jira carrada ama fertilizerska ayayna geedihi awood u lahayn inay nuugaan waxtarka manganiis wuxuu firfircooneeyaa enzymeyo badan oo dhirtu u baahan tahay waxaana la aaminsan yahay inuu door weyn ka qaato dhismaha chlorophyllka ama cagaariyuhu waa maadada u suura gelisa geedku inuu sameeyo cuntadiisa isla markaana noolaha kale cuntada ay cuni lahaayeen oo halka lagu diyaariyo weeyaan caleenta ayaa lagu diyaariyaa maadada mas'uulka ka ahna chlorophyll baa la yiraahdaa iyadoo isticmaalaysa ilayska qorraxda iyo biyaha iyo carbon dioxide-ka ayay waxay u bedelaysaa energy marka energy-gaas ayaa dhirtuna ku noolaanaysaa noolaha kalena ay ku noolaanayaan suuragal ma ahan in geedku nuugo nitrate-ka manganiis la'aantiis haddii curaha manganiis uu geedka ka maqan yahay ma awoodi karo geedku inuu nuugo ayoonka nitrate-ka ah oo ah ayoon hodan ku ah nitrogen astaamaha yaraanta manganiis marka manganiis markuu geedka ku yaraado waxa weeye geedkii fashaqadiisa ciriiri bay gelaysaa ilaa uu gaaro xaddi oo wax soo saarkiisa xumaada amaba uu hawlgab noqdo marka maxaad ku garan karaysaa in manganiis geedka ku yar yahay astaamaha yaraanta manganiis astaamaha yaraanta manganiis waxay isu eg yihiin astaamaha yaraanta magnesium manganiis waa na magnesiumna waa ga marka manganiis oo ah curiyaha aan ka hadlayno astaamaha yaraantiisu waxay isu eg yihiin astaamaha yaraanta magnesium marka laga reebo in jaalanimada caleemuhu ay ka soo bilaabanayso caleemaha cusub ee dhawaan soo baxay taa macnaheedu waa maxay manganiis waa curiye geedka dhexdiisa si dhaqso ah ugu socda oo ku firfircoon socodka geedka dhexdiisa sidaa daraadeed maadada xididka inta laga qaado ayaa durba waxa la gaarsiinayaa caleemaha marka astaamaha yaraanta magnesium waxay ka muuqataa caleemaha hoose ee duqoobay ka muuqataa waa magnesium laakiin astaamaha yaraanta manganiis ayagoo u eg kuwii magnesium haddana astaamaha yaraantoodu marka hore waxay ka muuqanayaan caleemaha cusub ee dhawaan soo baxay sababtu waa maxay socodkiisa ayaa yar oo durba ma gaarayo baarka sare ee geedka 2 waxa jaale noqda inta u dhaxaysa xididada caleemaha xididaduna waxay ahaanayaan cagaar xataa kuwa yaryar macnaha labada xidid inta u dhaxaysa waxay noqonaysaa jaale laakiin xididka midabkiisu wuxuu noqon doonaa cagaar xataa xididada yaryar 3 caleemaha dushooda waxaa ka muuqda barbaro kafee ah barbaro macnaheedu waa maxay dhibc
dhibco kafe ah ayaa loola jeedaa oo aad moodo in la gubay. qodobka afraad, manganiis markuu aad u yaraado dhirta waxaa ka hoobanaya ama ka daadanaya ubaxa iyo caleemaha. waxaan inoo muuqdaa waa caleemo yaanyo ah, waxaa nooga muuqdaa waa yaraanta manganiis ama manganiis ayaa ku yar. sidoo kale caleemaha kale ee noo muuqda oo u badan galley ama masego ayagana waxaa ka muuqda yaraanta manganiis. markay manganiis ku yaraato muuqaalkooda sidaan ayay noqonayaan. geedahan waa galley, waxaad arkaysaa xariimo yaryar oo jaallo ah in dhexdooda ay ka muuqdaan, geedka koriimadiisuna inay hooseyso. taasi waa mid ka mid ah calaamadaha lagu garto yaraanta manganiis. geedkani saan u malaynayo waa geedaha oo liinto ay ka baxdo, caleentiisi sidaan ayaa isagana u muuqanaysaa, barbaro jaallo ah ayaa dhexda ku samaysmaya inta u dhaxaysa xididada. casharkeeni maanta intaas ayuu ku egyahay. aad baad u mahadsantihiin dhegaysigiina wanaagsan. jazaakum allahu khayran. casharka haddii aad wax ka faa'iiday fadlan ha iloobin inaad tiraahdo subscribe, like iyo inaad ikhwada ama walaalaha kale aad la sheer garaysid. mar labaad ayaan idiin mahad celinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.